sharaf iyo karaamo maxaad ka ogtahay gabadha faceeda orodka iyo asturnaanta ku dhaaftay ee rag badan isku dilayaan haddana qorsheynaysa inay guursato imaam masjid qof kale maahin waa tiktokarada caanka ah ee Shushu Cabdalle si aad u daawato warbixintan oo dhammaystiran marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saartid oo share garaysid saaxiibada aad la sii wadaagto Shushu Cabdalle gabadha asturnaanta iyo akhlaaqda ku joogta TikTok ayaa caalamka ka qeyliyay markii rag badan arji guur u soo qorteen balse waxaas oo dhan waxa ay ka dooratay inay guursato nin imaamka ah masjid ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay dhawaan u safartay fanaaniin uu ka mid yahay Idlayare oo uga taageerada ay haysato Shushu Cabdalle ayaa u dhigay xaflad soo dhaweyn ah oo dadkii ka qayb galayay ay wada ilmeeyeen farxad damaashaad iyo boodbood ayaa laga bixi waayay xaalka Shushu Cabdalle ayaa hadda ah mid guul ku dhamaanaya waxaana dhawaan ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula aqalgali doonta imaam masjid ahna sheekh caanka ah xaafadda Soomaalida ku badan tahay Islii kaas oo ku xushay asluubta iyo akhlaaqda wanaageeda Shushu Cabdalle ayaa dhawaan gaartay 1 milyan TikTokeeda taasi oo sababtay in si degdeg ah ugu safarto magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii iska diiday rag badan oo ku sugnaa dalka Mareykanka kuwaas oo doonayay inay caan ka dhigto sidaasina ay ku guursadaan markii caan noqdaanna ay kala tagaan Shushu Cabdalle ayaa ah gabar hore guur u soo martay balse Soomaalida aynan ka qarin sheegtayna in guur xalaal ah ay soo martay taas oo Soomaalida taageero badan ay uga sii heshay kadib markii ay sheegtay runta kana hadashay in guur xalaal ah ay soo martay haddaba adigu ma ka mid tahay taageerada Shushu Cabdalle haddii ay tahay jawaabtaadu haa qaybta hoose ee commentiga ugu hambal